بسم الله الرحمن الرحيم كلتها بون داوديال waxaa hadda soo gabagabaysmay munaasabadii ay xilalka kula kala wareegayeen madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliland mas'uuliyiintii waaweynaa ee xisbiga muxaafadka ee wadani ayaa hadda barbarkayga taagan Yoonis Axmed Yoonis iyo Maxamed Sadiq Dhame maxamed Sadiq Dhame soo dhawo bal ugu horeyn hambaliyada u dirayso guud ahaan shacabka Soomaaliland madaxweynaha cusub iyo madaxweynaha hore maxay aad iyo aad baad maasantay Shaahi TV iyo Axmed Daahir runtii maanta waa maalin weyn waxaan dirayaa hambaliyo weyn waana maalin reer Soomaaliland qalbigooda ka bixi doonin waana maalin ay dhacday doorashooyin dastuuri ah waana maalintii xil wareejinta madaxweynihii hore qaranka iyo madaxweynaha cusub ee codka aqlabiyada lagu doortay aynu dooranay caleema saaray dhaarinay weeye walaal waa maalin aan runtii qiimo weyn noogu fadhida anaga walaal madaxweynihii hore ee Soomaaliland dad badan ammaan kala duwan bay u jeedinayaan waxay leeyihiin laba doorasho qabtay uu aqbalay bal ka warayada madaxweynahaasi runtii aad buu ugu mahadsan yahay labada doorasho xaq loogu lahaa ee waajibka ahaa inuu qabtay si faragelin la'aana si turxaan la'aana inuu natiijada aqbalayna waa guul waanu ku mahadsan yahay aad baa mahadsan farinta adiraysa Yoonis guud ahaan shacabka Soomaaliland madaxweynaha cusub iyo sidoo kale madaxweynihii hore maxay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad markii baad iskale marka labaad waxaan madaxweynaha cusub ugu hambalyeynaa doorashada la doortay waxaan leeyahay hambalyo ducana ugu ducaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala qabarayna inuu xilka ku asturo maalin weyn oo taariikhi weeye maanta inuu 12 December madaxweynuhu xilkii la wareegay marka sharaf bay noo tahay anagu inaan ka qayb galno madaxweynuhu horena uu ku mahadsan muddo xilka hayay madaxweynaha cusubna waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala adeego muddo dheer ah inuu adeego muddo noqdo hambalyo iyo ducaan u diraynaa Soomaaliland hambalyo aan leenahay assalaamu calaykum